السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا dhammaan meel aad joogtaan waa idin salaamayaa. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduucii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka, kaas oo aad u saameeyay baraha bulshada ahaa wiilkii dhalinyarada ahaa ee xaaskiisa gubay ama dilay. Markaan si xaqiiqe u hadalno oo aan iyadoo aan dadna ku raali gelinaynin amba aan dadna kaga doonaynin weji, laakiin sida xaqiiqada ah inaan kaga hadalno u baahannahay. Maadaama qabrigeena madow uusan qofnana la gelaynin, maanta dadka aad ka cabsanaysid xilliga aad ilaahay qabrigaada hoos tagtid qofna kuma caabin doono. Waxaa la yaab leh dadka qaar oo yani islaamnimada ka muuqata ama islaam ahba oo haddana cabsi dad ku jirto, oo macnaha yani kaba cabsaba shay yaroo hadda yani meeshaan aad joogtaan xilligaas ku eg, laakiin shay saameynayo macnaha qabrigaada iyo qiyaamadaada inaad kaga cabsooto shaqsi aaday u xanuun badan tahay, aaday u xanuun badan tahay. waxaa ka wadaa taas, waxaa jira dad garab siinaya qof qof dilay, qof qof dhibaateeyey. waxa la yaab kale waxaa waaye oo badanaa arrimo qaar waaqici oo aniga aan yani indhahayga aan saaray oo ka mid ah aan la yaabo marka aan arko yani qof weyn oo islaam ah oo qaangaar ah oo 40 jir ama 35 jir ama 80 jir oo garab siinaya qof qof dilay. inta taga saldhigii qofkan uu ku xirnay kasoo wadanaya dhahayo qofkan maxaa la dhahaye hala soo daayo, waa ina hebel ama waa anageeda. war adiga haddaa xabsigan kasoo fujiso ama adduunyada qofkan kasoo fujiso oo adduunyada isku raaxaysto, labadiina xaggee aakhir gelaysa? man rabbuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka markii lagu dhaho qabriga lagu hoojiyo oo laba malag lagu korkeeno maxaa sheegay? marka alla hor istaagto oo qiyaamaha aad soo istaagto daaba aaminsan tahay in qiyaamaha ilaahay lasoo hor istaagay oo judge ay jirto oo las xukminayo, daaba aaminsan tahay. why how sidee qof dhiiggiis u qaadeen? qofkan hadduu asiga dhiig galo kama ku galo ama kas ku galo asoo caqligiis fiyo soo ma gelin, waayo adigu difaacay. so wax oo aad u xanuun badan, wax shame on that aan dhihi karna. shame waxaan dhihi karaa wax oo maaragtay oo markaas laga yaxyaxdo, marka indhaha laga qarsado oo markasta, laakiin this is criminal dhihi karna, criminal oo for your qiyaamaha xitaa oo macnaha saameynayso. waray calaa inta xaal mowduucaas waxaa ku keena waxaana wax kale maahan. mowduuc yarka waa naagta islaanta xaaskiisa ahayd gubay ya, iyo ninkaas oo shaashadaha kasoo muuqday mar kale oo racfaanka maxkamadda loo gudbiyey. markii uu racfaan qaatay maxkamadiisa labaad hadda racfaanka uu joogo, lasoo saaray asoo qurux badan oo qorxirkiisa iyo dhoola cadeynta iyo xarakaad ka muuqdo iyo dhalaalka aad yaabaysid lasoo saaray. kolley aniga waxaan aaminsanahay inay jiraan fikrado xunxun oo ninkaas la siiyey, dad maan gaaban oo caqli gaaban inay fikrado xunxun siiyeen, ay ku dhaheen iska dhig qof habi ah, iska dhig qof ha lagu soo qurxiyo fanaanad qurux badan, ha lagu soo xiro macnaha ha lagu soo timo jaro, ha lagu soo qorxi, iska dhig qof aan waxba qabin, macnaha qof aan dembi ka muuqana waxba dilin iska dhig macnaha ila dhahay. xitaa meesha ku dhex murgan qosol qof caadi iska dhig. dadka fikrad khaldan in lasoo siiyey la tacani. laakiin adeer macaan waxaan ku dhihi lahaa amba waal macaan waxaan ku dhihi lahaa ogow maanta xitaa haddii wallahi adduunka lagugu sii daayo, haddii adduunka lagugu sii daayo inaan qiyaamaha ku fakarayn inay ka xanuun badan tahay maalintaas, waxaan ku dhihi lahaa laakiin sida yani ka muuqato muuqaalka iyo sheekadii qisadii hore aan soo daawanay oo maxkamadaadii hore ahayd iyo midda dambe marka hadda aan daawanayo, qaabka u hadlaysa markaa arag qofkii caqli iyo aqoon iyo yani experience saaxiib markuu ku arko totally wuu dareema inaa wax qarinaysid adeer. yani su-aalaha lagu weydiinayo markii aad ka jawaabaysid, qaabka ugu jawaabaysid maaha qof saxsan, qof wax sheegaya, qof lillahi wax u sheegaya matid, waxbaad qarinaysaa walaal.
so waxaa ku dhihi lahaa saas darteed haddii ayba jirto in xaaskaaga gacantaada aad ku gubtay oo aad u bareertay ama maskaxdaada oo markaas qaraxday laba qaraxday ha noqoto oo inta wixii laguu sheegay nin baa 600 ii bixinaayo iyo nin kala guursana iyo watadaas maskaxdaada ay kala wareegatay oo aad gubtay go-aanka saraganimo soo xidhaa adkeysi horlaha amba afeefa damba lahaa aad gabadha gubtay يعني hadda inaad tiraaho bensiin baan soo qaaday qolkeyga baan gubanayay qolka martida Soomaali ma qabno oo dhaqankaas iyada ma jirto meel qol iska banaan oo qofna aysan tagin ma jirto iyo waa gubaha qolkeyga qolka maala askal sida la sheegay gabadha guru grace wafaan waxaa lagu soo aaminay gabar nool ee lagu soo aaminay guriga meeda loo yimid dhakhtarka sida oo sheegay 89% waa gubatay gabadha marka runta la sheegay so adiga hadda waxay sheegaysaa maxaa la lahaa ina adiga hitibkaas kicisay hadda guriga bistoolad keento hadda bamba keento ay qaraxdo ee iyadoo tataan ku ciyaarayso ay qaraxdo ama bistoolad isku dhufto adaa ka mas'uul because adaa mas'uuliyadda soo qaad ma ogtahay marka gabadha lagu nikaaxay mas'uuliyadda aday ku saaran tahay way diintan u dhahday gabadha ma ka bixi karto guriga amar la'aantaada hooyadaada inta deetira guriga ka soo bax ma ka soo bixi karto aabeed doona soo bax ma bixi karto adiga afsixi karto kaliya waas loo dhahay sababta loo dhahay maxaa hadda waxaa leedahay hadaba aniga shida ku gubatay aniga mas'uuliyaddiis ma qaadayo waa yaa ka yiri waxaas mararka qaar aad qabanayso waddankaada meelaha laga xukmiyo adiga qabo wallahi لكن إلهي waxaan ka baryaynaa inuu noo keeno qof hungur raadis aanan ahayn adduun raadis aanan ahayn sida dadka hadda dhooban midkaadka jooga baa ka hadlaya aysan ahayn dadka lacagaha ka xaabsanaya guryaha dhisana sida kale waxaan la yaabaa waxaa ka mid ah 70 jir 40 jir kula 80 jir 90 jir weli hanti bini aadan u baahan guryo dhisanayo oo yani inuu wax qabsado u baahan war cimriga والله إنه 100 قاري إن حلي كانوا يجوا 100 إنه قاري صبت قاري محاول عمري دقدق أدوك ماضي حتى هذا 100 قارت 100 حلي كان كنترول ولقيه هذا محاول مرك فائدة كترت إنه تقولي إيشته ورما أدوك آخرها لست لحد ما ديو اللي قاري واحد أدوي سباك تواصل مثلا أفرتون سنة شنو يتواصل أميرنا ما وحول الدين بالقوم سوقرين شنو يتواصل كل واحد صار برتي وصارف ساعة وصارف هذا صوتون صار كله ويح عقب ستي أكو استمتاع أم وحكي عن هذا وحنا هذا لحنا ما تعايش سوق لسه ما آخرها قف إسلام هذا والدين تبرمنسن ما آخرها وش غير يعني يقول السوق يدبغي صار هو كفاية قف وحكى الله مدحنا وطن كان أفريقيا أو الإسلام هذا وحيرنا هذا مركب كرسي لو فريستو ومدحنا تلمنا قبته وحقوره الرادنا وعنتي تدخل الكورونا ودار لقد سنة وطن هير يقول لقد سنة ورادي يوم بلن قاعد وحاسو يقولين أكو عيش يا الله يعني انتين والله وطا معنا ورا أنا مرة قار الإسلام ما أفكر بس الإسلام ما فعل مجرد فكر مجرم يا رحمن الرحيم مستمتع صلاح قونسو عيدك ماشي أسرة اسمه كشا ملا مدحتين ماذا ماشي أسرة اسمه كشا إن محل ده هاي محكمة ده ملا أسرة اسمه خبطة لكن سد عدود كان وهذا حتى وحواي اسكعت إن حلقة فرق لي الاسم فرق لا فكر واجد طب قال قلبي جعل قال جعل إني واحد قبتان واحد سميان لكن أودك تويدا كل كل هدي قف انت صنع عمل لي حركه غير مصطفى الله عنه والكي سوال الله وعينا ومدحونا فريق انت صنع والكي عداله وربع لينا انت تكسب ماذا لينا سركال او ماذا يعني سركال وحويا معناه انه ودك استدفاع ما هو سركال يعني ددكيس معناه كعنا وكعجو كغميست تا معناه لينا تكسب بحصد نكا ان هبل ما لو سداي قف وداوع ما جرت waxaas halii soo daay awoodiisa sheegana garaadiisa madaxtinimadiisa goorma markaarina goorma cadaalad iimaan goorma baahida ka bixina goorma cudurrada tirada badan ka bixina goorma naxariista noo iimaan bilowgana waxa ku bilaabay waxa ila hadda la yaabana qof dambi gal waa u difaaci adi walka aado wuxuu rabaa rasuulka dhahay gabadhiisa wallahi hadii waxaan gabadhiisa sameeyay, yani waa laga mari lahaa abaalkeeda had kale u goy lahaa.
rasuulka gabadhiisa Faadimo gabadha ugu jecel yahay ilmihiisa. adiga marka nin asigaba aadan war u haynin oo aan qof wanaagsan ahayn oo aadan warba ka haynin jaadkiisa sigaarkiisa iyo wuxuu cunaya askari qaabdaran iyo iska ahaa maanta markuu wax dilay maanta markuu wax dhaawacay wax bay kula noqotay dhiiggan aad daadiseen qiyaamaha ma ku sugaa in qiyaamo jirto oo ma aaminsanidin macnaha waa waree waa waree waa waree xilliga soo qiyaamihii aakhir zamaanka lagu hoos jiro ayaa haddana wax kasta sii baaba'aa sii halaabaan laakiin waxaa wanaagsanaaneyd inaad caqli ceshatid qof walba aad tahay madax iyo askari iyo waxaad tahay inaad caqli ceshatid xilligan qof dembi oo galanaya qiyaamo kaama difaaci doonto xilli xun baa lagu jiraa maxaa la dhahaa lacag aad tacabtid meelna kuma tegi doontid yaa aakhiradaada wanaagsan ku dhan yaa aakhiradaada wanaagsan ku dhan qaafil baa tahay waa kuu jeedaa يعني إسلام وقتها لكن قافل باتها ولا وحا قافل كتها حلقا قيامها عرب سارن تهي حتى أتربط إن دلائنا بتباسد من ديك سوق لنا بتباسد داربتي حتى هنتينا تعرف أربي قافل أتها ومقنتها هذا ما قالك أدوك إيه كسر حلقير إيه أبو علي قف أقوي من هبل باحرا هبل بقى الله يستا سودا والله قبر هذا هدي درس من اللي بدين درس لو قبر يسكون لك إني سكوسو بحين مركز سؤال اللي دينا مرك إلى أهور تاعينتا إني سكوسو فيرني نفسي تاعنا شكل سو ولا ليا سي أو ما إسبدل يا قفل بوينه هذا دد بدن أو سوشيال ميديا أو عانو كارلا وأرك لكن دد وحاركي حال إسكت جينا أو ده حوا مصيبة قف كان يتإله أو نبدأمه أدر محاد بن آدم يقوم بقي محا واحد تدولي ما رتسين صح ذا شيء قبيل يوجهك عبسي محو معناه كوترا محو قيامها كقبطة محو قبري هذا كقبطة صح هنا كذا شوف كان إنسان فكر كان سليم كم ما كاش أذيقوا هذا الشخص قبيل مدح هذا منك بقين عربك waxa ugu daran oo naarta lagu tago waa adag social media waa aalada kaliya ee indhaha ku hayaan marka aad ka hadlaysid dad badan baa ku daawanaya xaqaaga ya allah marka musiibo weyn oo haysato waa in sarkaalku iyo madaxdiiba macnaha ay ummadii macnaha dhib ku hayaan waddanka dhibka ka jira dad baa haysto oo guri kiri iska bixila oo alyoom raadinaya maanta $1 $2 $3 raadinaya maanta waxaa jirta dowladda xilligan jirta inta baxdo oo maxaa la dhahaye cashuur weydiiso qof aanan beri wuxuu ku sugan yahay ogeyn beri wuxuu cunaya meel ku ogeyn cashuur laga qaada saas hanti loo raadina saas xilligan adduunka barakada beesha wax walba waqtiga baraka beele maalka baraka beele wax walba baraka beele ولي إن واحد حوالات الفادنا حرام الرادنا قفك محا أنت كيف حتى الدم بيجوا كليري كي معناها إلا يعني قيامان قبر سامينا قارف ولا جرى معناها والدم بيأت أذكر لا يا ما الدم بيروقش صلاة هذه ويسد هذه استغفارت هذه إن كاد بابيس لكن إيه بني آدم يقف ضاوعي عدالة درب محل حياتات حنتظر ولا حافظة واو نين يعني دبيلة ولا قربنا ولا صولي ولا تغييره يعني واحد حلو قومك يهود هذا قالها هذا وحرمنا هذا عدالة كل قلوب إنجلس أوليه لكن قوم كإسلام أو مؤمنين أو عدالة كل رقم بربركم إيه كترنا مركب وحلا نحواي أرمها صورة مركز كوكا كلنا aad ugu taxra ugu xeel dheeraad mar laakiin waa wax arrimaha waddankeena ka jiro aysan dadna ku baraarugsaneen cadaalad darada iyo qaab darada iyo dulmiga iyo nidaam la'aanta iyo hanti dhaca iyo dulmiga iyo cadaalad darada so intaas inaan ka hadlo xaqiiqada laga sheego wax walba
كليب ير وهذا محكمة دوري وان داودي يعني واحد قرح بدو من عبي مدح ميز كساري يمكن إن إسك قصلاي أو إسك كقصنين معناها تذكره واحد إلى واحد كتير قريب دودا هذا القريب متي إسبارة هذا كله هذا nin leeyahay haddii wax qaldan yihiin sharciga sax ay fariiso maya maxaa dhahay su-aasha waa sida loo weydiiyey adeer xilliga xoogga la sheeganaya waa soo dhammaatay xilliga qabiilka waa soo dhammaaday come down shahaadada dib a loo raaca meesha aad kala timid shuruucdiiba kuma dhaqmaysa sidee qof u difaaci sharciyadaba ma taqaani sidee qof u difaaci يعني قرصورها يعني احترام إيه حوغير وحاكو جرتي باشا حقلدن لكن هدي سيدا صحا نقول في الله وحاهد سيدا قف محكمة سوفريست وكان حقيلي وكان علمتها إن لغا صار محكمتها لكن ما دام أتي رحمن الدفاع والله يرى عن شرعي واقانا إنه كبدا إلا طيب لكن نين وين ولا العلنا وحاد هذا مع العلي سأدر حاد قرن نقطة عرض كان موقته يداد مثلا علم هذا يقرأ كان مثله سؤالها جديدة ستي سؤالها في الإنجليز كي دفاع ما محال وضد صار شو قف كان حد اللي حتى هليدا معناه ما هليدا معناه قاب كبر مس دفاع ما وضد صار شو قف كان وحوي دلوا له جدا هليدا معناه وحاول مدى تتكي حبسي نيك انت دينا نيك داوعي حبسي نيك كسو صارت wax ma madaantid hada garaawada islaaleed waa sameeyay maanta laakiin malid sorry waa ka xuma mana u maleynay adiga noocaada oo kale wax difaaci karo qadiyad dadkii oo dhan inta diideen adiga la kor imaad inta lawyer oo qaybi hore soo martan waa aragnay dad lawyerada ka wax difaacay dad meel qawm u akam dad mentality kaayb adiga ka mid tahay dad aqoon leh dad waxay sheegayaan war kuwa hore adiga ka dambeeyay waxay sheegayaan ma la fahmayo garsoori kuwa sharciga iyo wixii kula yaqaan iyo loo kula yaqaan kula fahmi waayo wax awditi waxa ka leeyahay in wax dawooleyso aad dhoobayso aan ugu jeeda al-ayn muallim dadka aqoon yahana ku jiro عسلي واحد الدول جرو وانا ماله الدوم كداون هذا وحقد كنت دفاع عليه قرب كاجا علينا ما جرى نوي أنا إذا كاجا سوور جد لكن قابك واحد دفاعي في قابك رقم يسين قابك واحد صعدان توصل لي واحد قلدوا حتى يحقق صعلها وان الدفاع له وان قرب كل الاستايله لكن قابك واحد وديني النظام كي يقص هذا الجواز اللي باي وإسكعدها إنه حاسك يسقف دل ويهاي وإسكعدها وحنا عدين ربع دفاع عادي دفاع اسمه وجد أنك أني واحد دليل إنه يها لكن حكايته هي قبيالة يلعق واحد قاب ضرب بكاته lawyer نظيف أو سيبوا ناس واحد دفاع متي والإسلام بان هاي صلي على النبي إسلام بان هاي حق وأنا كهذا محن قلنا هاي خير أمة محنا متقنة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حلقة وذيك اللي قبل جدي قري قبيلك ولا قصتك هذا قيامية أنت صجرت ما هذه قال لك بقى يقبل لك بقى no way هذا حتى هذه شلمات أكو قلتي أقرأ أنا جماي حق ما كان لنا رنت الشيء هذا كمرة من أكو سي فوق هذا وعدد قولي أسيدرو مركا لكن أرنكاس أرن مناسب ما أرنكاس أرن قرح بدل ما لكن وحان إلهي كبرين عدالة مروكو دم وحبا دم مالهان إن بلو معناها آبا وميس ملح كوكب صديق إنه حق سود بحواي قسم ما مربو حق مربو هرك مصوبح حوغا سترايك اللي نمرا حوغا والال رفاضة كذلك لكن حق كصبح لكن كلمة الحق ولو كان مر هديت عيني وشينا فهمت مركا إن شاء الله إلهي عدالتك وسجل جورس عدالتي الإلهي سي إلهي عدالتي سي
لكن آخر كلمة عليه لا وحاول أما final word واحدة ده هذا حتى كوجل است محكمة هو أدوك الكملي وأنيس آخرنا إيكا قارد أي الجسر الدوما